ay sanadkii labaad jirtay qolo cusub oo lagu hoosay degmada Geelay bal inaanu intaan shaqeynay aan u soo warka shaqaalaha dawladda ururada bulshada maamulka baxalka xaalad wanaagsan waxyaabaha intaan joognay aan ka fulay waaxda qorsheynta runtii waaxda qorsheynta muddadii jirtay runtii waxaa aad u abaalmarinaya oo inoo joognaanta xogeyaha dowladda hoose oo ahaa markii waaxda qorsheynta aasaasay maamulkii markaa isagiyo Axmed Samir ay maamulka degmada ahaayeen runtii waaxdana warbixin badan koog runtii waaxda qorsheyntu muddadii la aasaasay waxaa dadka bacda heshay xafiis ay ku shaqayso kuna gudato waajibaadka shaqo ee loo xisaab runtii waxay hawl aad u adag in xafiis lagu dhiibay oo aan hore lagaga horreeyay aad saaskana aad ka bilaabayso ay adag tahay sida qofka bilaadankii uu hawshaa u dhisaanay runtii adag tahay tala badan oo dhalinyarada aqoonyahanka ee gobolka iyo mar walba soo qooda adag yeelanay dhiirigelinta maamulka oo iyadoo runtii mid kamid ah waxyaabihii hawsha xafiisku inuu shaqeey kamid ahaa booqashada booqanay ururada bulshada oo runtii ka mid ahay talooyin badan ay siiyeen qaabka iyo nidaamka loo dadalgelin karo hawlaha shaqeey loo yaala runtii waxay gudaha ugu badan aan gaarnay la tashiga shaqaalaha runtii isku xidhnaantu iyo wada shaqayntu waa waxyaaba qofka bilaadka kaga marmarin karo higsiga uu leeyahay muddo ka bacdi maanta xafiiska waaxda qorsheyntu wuxuu leeyahay nidaam dhamaystiran haddii aad tusaale u soo qaato finance systemka awalba maadaama xafiiska aan horuuji waxaan ku dadaalay inaan u sameyno shaqaalaha ka shaqeynaya inay qof walba u lahaado nidaam protocol yani qof walba uu fayl lahaado faylkaasi markaasi qorshaha sanadaha ee ay waaxda qorsheyntu leedahay aan ka sameyno qorshaha bilaha qorsha maalmeedku uu safar ku hayo runtii bishu markay dhammaato waxaan u sameynaa xafiiska waaxda qorsheynta shaqaalaha performance evaluation qiimeyn baan u sameynaa shaqaalaha waaxda waan soo maraysanaa caalamka ku saabsan waxaa ku tusaysaa qofka shaqaalaha halka uu marayo waxaa qofka shaqaalaha halkuu yahay tababar halka uu ka liito waxaasoo baa ku soo baxay runtii waxaa kaa lagu mahadnaqaya shaqaalaha oo runtii hoonkara oo aan dhaliishooda qaadanaya guushoodana runtii dee ay igu leeyihiin si fiican runtii taa oo shaqeynaya ay aad uga shaqeeyeen xafiiskayga waaxda qorsheyntu maanta wuxuu leeyahay nidaam aan isku wada xiriirno oo tusaale ahaan kale maadaama shaqo maalmeedka gudanayo waxaan u sameynay system isku xiraya dhammaan kombyuutarada xafiiska oo qofku shaqada haddaan dibadda ka joogo ma maqano sinaar kaga maqan ama hawl shaqo aan kala soconayo qofka activity-gu qabanay qorshihii maanta u qorshaysnaa ma qabtay ma wuxuu ku jiraa hawl kaloo aan shaqadahay kadibna waxa weeye qaabka maamulay hawl maalmeedka shaqo runtii waxaa xusin mudan intii waaxda qorsheyntu ay jirtay inaan soo saarno oo aanba ka fikirno maadaama waaxda qorsheyntu ay cusub tahay sidee u soo saari karnaa balbuuhaan oo ka hadlaya shaqa abuurka dhalinyarada si loo dhiirigeliyo dhalinyarada inaan soo saarno dhinaca dhaqaalaha sidee kor loogu qaadi karaa magaalada Geelay waa magaalo caan ku ah wax soo saarka beeraha waa magaalo 66% wax soo saarka dalka Soomaaliya soo saarta markaa si loo dhiirigeliyo asaasan baa sameeya dhinaca dhaqaalaha waxaan ogaanay waxyaabaha muhiimka ee Geelay tusaale ahaan in dadka beeraleyda iskilkooda hooseeyo runtii maamulka golaha deegaanka uu hogaamiyo badan shacab maxamed Hussein xogeyaha fulinta dowladda hoose runtii way raali garaadeen waxaa la sameeyey waxa laga yaqaano local economic development forumkaasi waxaa chairmanka ah gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha waxaa ku xiga nin ganacsada waxay isku tegayeen dowladdii iyo markaasi ganacsatadii ururadii bulshada si markaa dhaqaalaha kor loogu qaado bulshada dhinaca loogu soo jeesto waxaa sanadka diiradda saaray in maadaama beeraleyda iskilkooda hoose in konton beeraley la qaato xirfadooda aqoona kor loo qaado islamarkaana qalabka siyo tuul ay ku shaqeeyaan kadib waxaan filaynaa haddii ilaahay aado in xirfadooda kor kaco sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa mashaariicda horumarineed ee ka fuliya degmada oo iyaguna salka ku haya dhiirigelinta wax soo saarka kale tusaale ahaan soo qaadano
سينمada dhaxal ku sameeyay iyo habeenka la qorxiyay waxa ka shaqeeyay markaa 270 qof markii la dhisay kabacdi waxay noqdeen 500 iyo dheeraad ayaa dadkii noqday waxa dareemi kartaa inta qof ee hadii awal dhaqaalaha gudintay maanta suuq qiimanay waxa la dareemi karaa inta awal dhibaato oo dhinaca caafimaadka dhibaato oo waxa keenaysa dadka kuraasada si kareeyay laakiin markii la hagaajiyay la nidaamiyay hal soo sameeyay waxa kor kacay shaqaalihii waxa kor kacay noloshii dadka markaa runtii waxaan aad ugu amaanayaa maamulka gobolka iyo degmada runtii iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo soo booqda xafiiska oo aan tilmaantii weydiino runtii ugu dhiirigeliyeen hawsha ka sii wado waxaan la farxad gaar ah maanta xafiiskayga waxa qorshaytu waxaan maamulka iyo shaqada gaarsiin adduunka maalinta wuxuu balaadaa inaan u sameeyno uniform ay 2015 ay ku soo hawlaan xafiisku ay shaqaalo hayraado laakiin samaanta marka la arko qaabka protocol iyo plan fishing sidii u jireen dadka suuqa maanta way ka duwan yihiin runtii waxaan aaminsanahay haddii aan maamulka ugu dhiirigelin talaabo inaan hor u qaadno inaan hor u qaadneen airport maamulaya hadaloo dheerowdeen kulli maamulka insha allah ilaahay rabo aad uga hadli doona aad uga faa'iideysan dhammaan soo dhaweeyaasha iyo madaxda gobolka dhammaantiin assalaamu calaykum